Waa idin salaamay dhammaan akhyaarta meel walba aad joogtiin. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida loo isticmaalo Google Classroom. Waa maxay Google Classroom? Google Classroom caadiyan waxaa waaye fasal online ah, waxaana iska leh shirkadda Google iska leh. Wuxuu isku xiraa ardayda iyo macallimiinta, waxaana lasoo dhigaa ogeysiisyada, macallinkaa soo dhigaya ogeysiisyada, casharada iyo homework-yaasha soo dhigayaa. Waqtigii la sameeyey waxaa la sameeyey 2014. Isticmaalkiisa xooggan wuxuu bilowday 2020 kadib. Waxaa sameeyey team oo shirkadda Google ka shaqeeyaan, hal qof keligiis ma sameynin. Xog yar oo ku saabsan Google Classroom. Inta badan waxaa laga isticmaalaa iskuulada, dugsiyada dhexe, dugsiyada sare iyo jaamacadaha. Shirkadaha qaarna way isticmaalaan oo waxay u isticmaalaan tababarka oo dadka ka shaqeeya shirkadda tababarkooda u isticmaalaan. Wuxuu yareeyaa isticmaalka warqadaha. Waxaa kaloo laga isticmaalaa in ka badan 230 waddan. Mawduucyada aan rabo inaan ka hadlo hordhacooda waxaa waaye sida fasal cusub oo online loo sameeyo, sida fasal sameysan looga qayb galo, sida ogeysiis ama casharo ama homework ardayda loola wadaago, iyo sida homework waqtigiisa xadidan yahay loola wadaago ardayda ama layli.